صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنذيو فرض كأوغا فقرة سكذا سيا سنذيو فرض كأوغا فقرة سكذا سيا رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد waxaynu dhageysanayna suuratul an'aam waxay soo bandhigaysaa aqoontii carabta qabla al-islaam suuradaha hore waxay ka soo hadleen aqoontii ay lahaayeen ahlul kitaab maadaama ay ahayn suurado ku soo degay Maka ee Madiina suuradanina maadaama ay tahay suurad Maka ku soo degtay waxay ka sheekeynaysaa aqoontii carabta iyo dhaqankoodii dadku dabcan wax badan oo wanaagsan oo diintii Nabi Ibraahim ay ka heleen way lahaayeen laakiin quraanku wuxuu ka digayaa dhaqankii qalloocnaa dhaqankaas waa waxyaabaha ummadda dib u riday buu ahaa ummadii Carbeed oo ummadihii dhulka ku noolaa ka dambeeyay inta shibhal jaziira al-arabiya la yiraahdo ku noolaa afar arrimood ayaa runtii ay caan ku ahaayeen ama quraanku aad uga digayaan waa gaalnimada oo aynu ka warrami doonaa aqoonadooda nooca ahayd iyo cadaalad darrada oo dulmi badan bay sameyn jireen iyo qaybsanaanta iyo xagga dhaqan xumada ama akhlaaqda afarta arrimood markay ummad isu raacaan burbur bay ku dambeeyaan marka waxaynu ka baranaynaa waxaan Ilaahay uga digaya ummadaha ama uu ku eedeeyay inaynu ka baydho saxaabadu ridwaanullaahi calayhim asxaabtii Nabi Maxamed maadaama ay ahaayeen kuwa dhaqanka jaahiliga soo arkay dhaqankii islaamkana ku dambeeyay markay isbarbar dhigaan Ilaahay bay u mahadnaqi jireen waanay ku farxi jireen Umar ibn Khattab Allah ka raali noqdo wuxuu lahaa la yacrifu al-islaam man la yacrifu al-jaahiliya macaanka islaamka iyo wanaagiisa ma garto qof aan jaahiliyada iyo xumaanta waxay leedahay garanayn aqoonadoodu waxay ahayd inay caabudaan sanamyaal kala nooc ah oo ay ku caabudi jireen xataa kacbada Ilaahay ilaah kaliya inaguma fallabayna Ilaahay way rumaysnaayeen inuu caalamkan abuuray laakiin waxa dhan kaliya inaguma fillee qaar kale inuu ku kabnaano waa inay jiraan waa shirkigi weey cid aynu sii marnaana waa inay jirtaa ma nacbuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa Ilaahay baynu ugu dhawaanaynaa bayna kuwan kacbada waa ku yaalay 360 sanam oo maalin walba sanadka mid lagu hagaajiyay aqoonada noocaas ah suuradu aad bay uga waramaysaa aad bay uga digayaan suuradaha makiga oo dhan waxa kale oo wehelinayay oo kuwan ahlul kitaabka ay kala mid ahaayeen malaa'igtu waa habla Ilaahay bay oran jireen hadday yahuudu yiraahdeen Useyr waa inay Ilaahay kristan kula ay yiraahdeen Ciisa waa inay Ilaahay iyaguna waxay dhahaan malaa'ikatu banaatullah na'uudu billahi minha wa subhanallahi amma yaquluna 'uluwan kabira aqoonada noocaas ah waxa uu wehelinaya aakhira diidka aakhirana way ka soo horjeedaan wax jira ma aha bayda adduunkana inoogu edish aakhira halka ay gadhig taas way badnayd waxay sameyn jireen quraanku ka waramaya faraytum allata wal uzza wa manat athalithata al-ukhra falxumadooda wal ka warama maxay arin hayaan maxay itaalayeen sanamyaasha magacyada leh qofka markuu hidaayada Ilaahay siinayo kuwaas bay hoos u eegi jireen timir bay ka sameeyeen dhoobay ka sameeyeen qori bay ka sameeyeen kaas uu hoos u dhuganaya qof la yughni wala yanfa warabta muxuu kan taraya warabta muxuu yahay maalintu baraarugaan buu ka dhaqaajin jiray mid waliba waxyaabaha ay sameyn jireen waxa kamid ahaa quraanku aad uga hadlay la inooga digayo waxa la yiraahdaa dulmigana caan bay ku ahaayeen dulmigaas oo sal ay u ahayd qabyaalada iyo qaybsanaanta dadku xoog baa la isticmaali jiray nidaamka kaynta ama nidaamka duurka
wax sharci ma jirin sharci kutub hore iyo mid kitaab dambe toona ma jirin qabaa'ilkaasaa la isugu xoog sheegan jiray marka qolada xoog badnaatuun baa talin jirta magtooduna kuwaasay badan jireen dumarkooduna ay suuq lahaayeen waxaa ka mid ahaa wax siyaasad xumadooda qaybsanaantaa ka sokow baabiisay iyo qabyaaladda waxay kala raacsanaayeen ummadihii hareeraha ka xiga awoodda lahaa qolo waxay raacsanayd reer yurub qolo kale nimankii faris la odhan jiray qolo kale xabashidii yeman ka xigtay saasay u qaybsanaayeen saddexdaa faraar bay lahaayeen qabaa'ilna way u qaybsanaayeen ummadaha kalena way la kala safnaayeen taasina waxay ku keentay baaba waa midhka islaamku uga digaya dadka muslimiinta ah wax la jafay bay ahaa jaahiliyad haddii lagu dhaha islaamku wuu jafo wuu gooyey diin baanu ku bedelaya nidaam cusub waa kayaan iyo sarxi iyo ummad isku duuban oo jira dadka muslimiinta oo aan qolaya qabyaaladina qaybinaynin ummado kalena daba socon oon dabadhilufu ahayn dowladdu nebi maxamed dhisay calayhi salaatu wasalaam jasiirat alcarab uu ka dhisay madiina waxaanun bay kolba mid ridaysay kaa islaamkana way dhisaysa saasay carabi ku yeelatay sharaf iyo ammaan iyo miisaan waxyaabaha runtii dhibaatada ku hayay waxaa ka mid ahaa suuradduna aada uga warramayso oo dulmiga ka mid ahaa iyagu isdilka isdilayeen waxaa sii wehelinaya naxariis darroo kale oo ah inay maatidooda dili jireen caruurta yaryar ayaa la dilayaa iyo dadka itaalka yar walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqi naxnu narsuqukum wayaahum ha iska laynina buu ilaahay leeyahy carruurta idinkoo faqri ka cabsanaya idinka waaweyn iyo iyaga yaryarba anaa masruufayo biilinaya baa ilaahay u leeyahy subxaana wa tacaala jaahiliyadu ma naxdo waxaa jaahiliyada la idhaahdaa naxdin ma leh mar walba jaahiliyadu jirtaba naxdin la-aantaasaa ka jirta sidii unbaa carruurtii loo haddii berigaa hore nolosha lagu aasi jiray iminkana calooshaa laga soo ridaa china hindiya adduunyadaa bariga combyutarkunbaa lagu eegaya ilmaha yar dee hadduu ina noqdo banaankaa la dhigaya waa la duraya waa laga soo tuuraya waida almawudatu su-ilat biayi danbin qutilat waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswadan wahuwa kadiim muuqaalkaasuu qur-aanku ka bixinaya dadkii diidanaa hablaha iyo carruurtao dhan ba iska layn jiray waxaa usii wehelinayay akhlaaqda oo ka xumaatay ummadu waa akhlaaq haddaynu akhlaaqda ilaashan weyno inagoo iska taagtaagan baynu dumaynaa ragga dumarka carruurta qarniga faca kacaya intoo dhammiba way iska dumayaan alumamu akhlaaq ummaddu waa akhlaaq qur-aankuna akhlaaqdoodiibuu nimankaa aada u soo bandhigaa xaaraantii caanku ahaa inayna cunaan ama isticmaalaan sida baasha la yidhaahdo ribada khamriga qamaarka baktiga oo sidiisa loo cunayo o la odhanayo bir qarsoon baa gowracdo ilaahay dhiiggaa la cabi jiray hadda waxa aynu ka sheekeynayno waaqiceennana waa inaynu ka saxno neefka saasunbuu qofku uga taagi jiray toorida kuruskunbuu awrka ka taagaya afkunbuu saaraya naaskii caanaha sidii loo nuugi jira unbuu dhiiggaa u jaqaya waata suuraddu ka warramaysa waxyaabaha laga xaaraantinimeeye dadka baktiga iyo doofaarka iyo khamriga iyo dhiigga intaba waxay cuni jireen agoonta xoolahooda miskiin baa miska la fuulo leh kaasaa itaaliyar bay odhan jireenoo gow baa laga dhigi jiray dumarka xaqoodaa la qaadan jiray meherkoodaa la cuni jiray dhaxalkoodaa la cuni jiray baasha xaaraanta la yidhaahdana caan bay ku ahaayeen akhlaaqiyaadka waxyaabaha u liita weeye xaaraan cuntu dadku hadday xaaraanta isticmaalaan waxyaabaha baabi'iyey ka midti way dumayaan casrigan soomaad arag wax alla waxa aynu ka warramayno o dhan dee dadkii muslimiintaa baa lagu baahinaya oo looga dhigayaa wax caadi oo ilbaxnila ilaa hadda sidii bay gaaladu u cunayaan khamrigii khamaarkii sinadii baktigii maxoolaa la gowracaa iska hubi dhiigga bahalkan lasoo qasacadda lagugu soo sameeyey ha odhan inun kanaaba lagu ilbaxayaa lasoo waarideeyey bal iska hubi wax la gowracaa ma jiro baktigii sidii un baa loo wadaa waa la warshadeeyey akhlaaq xumadooda waxaa ka mid ahaa bahasha sinada la ydhaha iska xalaashan jireen
caaisho xadiidkeeda akhri guurarka waxay u yaqaaneen 8 ahaa midkan islaamka mooy 7 kaleba nijaas baa waa la awrday jiray ilmaha xoolaha haddaynu idhaahno awr qooraha loo soo eego iyaguna saasay ahaana waxaa la odhan jiray bal orodoo kaasaa muruqiyo weyn oo cade ha kaa soo dhalo ilmo wanaagsana iigu tag waa la irgisayn jiray habarta mid baa la irgisaynaya ilaa hadda gaalow dee sidii unbaa la isu dhaafsadaa waa jaahiliyadu mar walba waa sideedii qaawanaanta iska caadi ahayd meel kale iska daayo baytullaahi alxaraamka alyawma yabduu kulluhaa aw bacduhu famaa badaa minhu falaa uxilluhu maanta waan dawaafayaa bay leedahay naagi carabta ka midi waanaan qaawanah war waxayga in laga khaawiso ma ogoli alaabtayda yaan layga khaawis bannaankaabay dhigtee meel lagu dawaafayo see loo eegay ilaa hadda waa sidii un qaawanaanta waa dhaqanka akhlaaqiyaadka liita islaamku uu jafay meesha aayaadku xijaabku ay ka soo degeen marka waxaasoo dhan caqiida xumadaas iyo dulmiga lagu samaynayo dadka bulshada dhexdeeda cadaalad darradaas qaybsanaanta siyaasiga ah dadku ay qaybsan yihiin akhlaaqiyaadkoo dhintay afartaa arrimood waxa weeyaan waa alcarabu qabla alislaam xayaatu alcarabi qabla alislaam waxaad dhegaysanaysaa nicmadii ilaahay uu siiyey aayaadka markaynu suuratu lancaam ibnu cabaas wuxuu leeyahy qofka doonaya diintii iyo dhaqankii carbeeda islaamka ka hor suuratu lancaam waxaad akhridaa aayadaha 100 ka dambeeya waxa ay markaa soo bandhigayaan xoolihii ilaahay uu siiyey baa la kala xidhaya kaa ilaahay baa leh kaa sanamkaa leh kaa halkaa mareegtaha lagu kaasi waa nooca waa waxa loo kala abtirinaya waa deeqdu ilaahay bixiyo lagu mahadnaqi lahaa ma geyno kaa ma geyno kaasi waa xaaraan waxay caabudi jireen shayaadiinta iyo jibanka وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا جنك دوحا جوغا وضعنا مغانية مرتكونا هاي وحال استعمال شري بهالك فالك وحال استعمال شري التطير والتشاؤم باسيسيغا وحال باسيسيغا وحالها أصلا لغا فالين يا حيوان هذا سومرك الله سعونايو هدو توكا صوبحو يا هدي أي باشا قوميست الله إلى هذا صوبحو سفر كوالا iska daynaya shimbiraha la duulinaya haday midigta u duusho in Sacuudiga haday bidixda u duusho safarku ay iska joogo walumada xayiraada haysatee waxaan oo dhan wax badan ba hada bulshadeena ku jira marka wax la cunayo awrta la kaxaynaya xabaalaha la geynaya markaas lagu soo dul gowracaya xabaal hada aragta sadaqa la geynayo halkaas ay ku lug leedahay marka waxa soo dhan islaamku uu dumiyay waxaan u dhisay nolol cusub oo qurux badan marka asxaabtu wixii ay dareemaan bayasaluunaka bay keen su'aal bay keen jireen wixii hore saas waxa maxaan ku bedelaa nabi allah idan marka quraanku saas uu inoo saxay nolosheena waa inuu islaamka iyo diinta ku saxno si ay u macaanaato oo ay u noqoto nolol lagu farxo adduunyo aakhira wa hada ma aquluhu astaghfirullah ya munzil al-ayati wal furqani bayni wa baynaka hurmatul qur'ani